barnaamijkani oo la yiraahdo Sindi ama dhaqdhaqaaqa ardayda ee masiibooyinka dabiiciga ah oo ay soo qaban qaabiyeen ama ay soo aasaaseen ardayda jaamacadda Golis gaar ahaan kulliyadda caafimaadka ayaa ah mid loogu talagalay in dhaqaale loogu ururiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen iyo guud ahaanba dadka ay waxyeello ka soo gaadho masiibooyinka dabiiciga ah. munaasabada daafurka barnaamijkani oo lagu qabtay xarunta jaamacadda Golis ee Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay xubno wasiiro ah, agaasimayaal, maamulka, macallimiinta iyo ardayda jaamacadda Golis iyo marti sharaf kale. ugu horeyn waxa faahfaahin ka bixinaya barnaamijkan dhaqdhaqaaqa ardayda ee masiibooyinka dabiiciga ah Aamina oo kamid ah ardayda jaamacadda Golis. walaalayaal dhamaantii wad ogtiin guri kasta TV baa yaal, habeen kasta waxa daawateen caruur baa dhimatay, hooyaa dhimatay, haraad baa u dhimatay, gaajo u dhimatay. dhamaanteen waxa laga yaabaa qaarkeen in cuntada ka soo hadha ay dabada geeyaan. maynu isu tagno, maynu dareeno oo dhibka aragno. waxa laga yaabaa halka lagu dhintay in 10 kiiloomitir ku jirto. waxa isna halkaasi ka hadlay Dr. Saciid Axmed Xasan, gudoomiyaha jaamacadaha Golis. qof kasta oo in yar ku darsaday أجر با وجرة الدال على الخير كفاعله يا رسولك عليه الصلاة والسلام. أرن مال فوق قال يوي أرن هالأبورة وهل كان يلوغ عصب ووحل لوغ باهي دل يرد جامعتها كجرة. دكتور سيد oo ka socday wasaaradda caafimaadka Sheekh Suleymaan agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo wasiirka xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Mudane Maxamuud ayaa dhamaantoodba soo dhaweeyay barnaamijkani ay ardaydu daafurtay ee loogu magac daray dhaqdhaqaaqa ardayda ee masiibooyinka dabiiciga ah. ugu dambeyn waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Axmed Faarax Cadare. kulankan qiimaha badan dareen kale ee runtii ay soo abaabuleen ardayda jaamacadda Golis sayeshe ay ka ilaaliyeen inay magaca Golisiyaan ay ku soo koobeen Sind ay doonayaan inay noqdaan urur ama ka dhaxeeya dhammaan ardayda jaamacadaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. hambalyan leeyahay. intii ay socotay munaasabadani lagu daafurayay barnaamijkani Sindi ayaa ardaydu waxa ay u ururiyeen dadka ay abaaruhu saameeyeen lacag dhan $2,000 oo Mareykanka ah. Mukhtaar Mursal Xiin, Home Cable TV, Hargeysa.